maalin kadib markii baarlamaanka Uganda ansixiyeen in raggu isguursan karaan dumarkana isu dhixi karaan ayaa waxaa soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo soo dhaweynaya arintaasi. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ka mid noqday xildhibaanada soo dhaweeyay tallaabada ay baarlamaanka Uganda ku ansixiyeen in raggoodu isguursan karaan, isagoona sharaxaad dheeri ah ka bixiyay dhaqanada noocaas ah oo uu ku soo arkay waddanka Ingiriiska oo ku noolaa muddo ka badan 20 sannadood. Daahir ayaa dhaqankaasi foolxumada badan ku tilmaamay ilbaxnimo hor leh oo ragga u fududeynaysa inay isguursadaan dumarkana sidoo kale. anigu wax badan ayaan ugu yaraan 23 sano ayaan deganaa demokraad galbeed. waa arkay dad laba nimo isqabtay iyo laba naag oo lesbian oo isqabtay, laakiin dimuqraadiyad waxaan aniga adiga ku heshiino oo aan dhaqan ka dhigano ayaa dimuqraadiyadda. dimuqraadiyadda waxaa kaloo ah in wax la yiraahdo aqlabiyad lagu kala baxo. dimuqraadiyadda waxaa la yiraahdaa waxay bulshada jeceshahay oo lagu dhaqmo. dimuqraadiyad waxa magaca maanta ugu horeeyay uu soo yeeray waddanka waxaan maqlay in Hungary inay hadiyeen Greega waa luqad oo Greega aan jeclahay ayay ka timid. marka walaal for example waxaad arkaysaa qolada Catholica iyo Protestka waxaad arkaysaa niman la leeyahay waa sheeqin oo haddana guurku waa ka xaaraan la leeyahay oo kala arkaysaa in dadkii masiixiyiinta ah ay guursan jireen. markaad aragto haweeney masiixiyada markaad aragto sida qoftan islaamiga ay xijaabanta oo dhaqankoodu waa ujeedaa inay ay yihiin. marka ana waxaan qabaa dimuqraadiyadda waa waxa aniga iyo adiga aan ku heshiino ama mujtamac uu ku heshiiyo oo la hirgeliyo. marka haddii ay hadda iyaga ay sharci cusub ay samaystaan annaga kulli waxaan balyeynayna weli waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado, in wiilasha guurka ugu fududaado, in dadka ay nasteexa helaan oo ay qarashir isku guursan karaan. marka haddii ay hadda iyaga ay sharci cusub ay samaystaan annaga kulli waxaan balyeynayna weli waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado, in wiilasha guurka ugu fududaado, in dadka ay nasteexa helaan oo ay qarashir isku guursan karaan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. sidee ilbaxnimo ku tahay in raggu isguursadaan? sideese dhaqankaasi uga fududaaday guurka xalaasha ah ee uu Allah u jideeyay ragga iyo dumarka? wax lala yaabo ayuu noqday hadalka xildhibaan Daahir. caqliga qofka muslimka ah kama dhaadhici karo in raggu isguursadaan sida qoomkii la halaagay ee Luud. sidaa darteed ayaan Daahir weydiinay sida ay ku suurageli karto in laba rag ah ay isguursadaan, isagoona ku jawaabay waxaa jira siminaaro la siiyo dadka noocaas ah ka hor inta aanay isguursan. dadka markay israbaan waxaa loo furaa tababar koorsa la siiyaa, waqtiga la siiyaa oo waxa la yiraahdaa training la siiyaa si dabeecadda qofka isku cusubtii loola qabsado oo sidii laba qof oo isku cusub dabeecadooda si uu shaqaban lahayd ayaa la baraa. sida haweenka naagaha guursana lesbian la yiraahdaa ilbaxnimadii siyaad. maalin kadib markii baarlamaanka Uganda ansixiyeen in raggu isguursan karaan dumarkana isu dhixi karaan ayaa waxaa soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo soo dhaweynaya arintaasi. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ka mid noqday xildhibaanada soo dhaweeyay tallaabada ay baarlamaanka Uganda ku ansixiyeen in raggoodu isguursan karaan, isagoona sharaxaad dheeri ah ka bixiyay dhaqanada noocaas ah oo uu ku soo arkay waddanka Ingiriiska oo ku noolaa muddo ka badan 20 sannadood. Daahir ayaa dhaqankaasi foolxumada badan ku tilmaamay ilbaxnimo hor leh oo ragga u fududeynaysa inay isguursadaan dumarkana sidoo kale. anigu wax badan ayaan ugu yaraan 23 sano ayaan deganaa demokraad galbeed. waa arkay dad laba nimo isqabtay iyo laba naag oo lesbian oo isqabtay, laakiin dimuqraadiyad waxaan aniga adiga ku heshiino oo aan dhaqan ka dhigano ayaa dimuqraadiyadda. dimuqraadiyadda waxaa kaloo ah in wax la yiraahdo aqlabiyad lagu kala baxo. dimuqraadiyadda waxaa la yiraahdaa waxay bulshada jeceshahay oo lagu dhaqmo. dimuqraadiyad waxa magaca maanta ugu horeeyay uu soo yeeray waddanka waxaan maqlay
in hungary inay hadiyin Greega waa luuqad oo Greega aan jeclahay ayay ka timid marka walaal for example waxaad arkaysaa qolada Catholic-ka iyo Protestant-ka waxaad arkaysaa niman la leeyahay waa sheeqin oo haddana guurku waa ka xaraan la leeyahay oo kala arkaysaa in dadkii masiixiyiinta ay guursan jireen markaad aragto haweeney masiixiyada markaad aragto sida qoftan islaamiga ay xijaabanta oo dhaqankoodu waa u jeedaa inay ay yihiin marka ana waxaan qabaa dimuqraadiyadda waa waxa aniga iyo adiga aan ku heshiino ama mujtamac uu ku heshiiyo oo la hirgeliyo marka haddii ay hadda iyaga ay sharci cusub ay samaystaan annaga kulli waxaan balyeynayna weliba waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado in wiilasha guurka ugu fududaado in dadka ay nasteexa helaan oo ay qarashir isku guursan karaan marka haddii ay hadda iyaga ay sharci cusub ay samaystaan annaga kulli waxaan balyeynayna weliba waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado in wiilasha guurka ugu fududaado in dadka ay nasteexa helaan oo ay qarashir isku guursan karaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun sidee ilbaxnimo ku tahay in raggu isguursadaan sideese dhaqankaasi uga fududaaday guurka xalaasha ah ee uu allaah u jideeyey ragga iyo dumarka wax lala yaabo ayuu noqday hadalka xildhibaan daahir caqliga qofka muslimka ah kama dhaadhici karo in raggu isguursadaan sida qoomkii la halaagay ee Luud sidaa darteed ayaan daahir weydiinay sida ay ku suurageli karto in laba rag ah ay isguursadaan isagoona ku jawaabay waxaa jira siminaaro la siiyo dadka noocaas ah ka hor inta aanay isguursan dadka markay israbaan waxaa loo furaa tababar koorsa la siiyaa waqtiga la siiyo waxa la yiraahdaa training la siiyaa si dabeecadda qofka isku cusubtii loola qabsado oo sidii laba qof oo isku cusub dabeecadooda si uu qaban lahayd ayaa la baraa sida haweenka naagaha guursana lesbian la yiraahdaa ilbaxnimadii asiyaad maalin kadib markii baarlamaanka Uganda ansixiyeen in raggu isguursan karaan dumarkana isu dhixi karaan ayaa waxaa soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo soo dhaweynaya arintaasi xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa ka mid noqday xildhibaanada soo dhaweeyay tallaabada ay baarlamaanka Uganda ku ansixiyeen in raggoodu isguursan karaan isagoona sharaxaad dheeri ah ka bixiyay dhaqanada noocaas ah oo uu ku soo arkay waddanka Ingiriiska oo ku noolaa muddo ka badan 20 sannadood daahir ayaa dhaqankaasi foolxumada badan ku tilmaamay ilbaxnimo hor leh oo ragga u fududeynaysa inay isguursadaan dumarkana sidoo kale anigu wax badan ayaan ugu yaraan 23 sano ayaan deganaa demokraad galbeed waa arkay dad laba nimo isqabtay laba naag oo lesbian oo isqabtay laakiin dimuqraadiyad waxaan aniga adiga ku heshiino oo aan dhaqan ka dhigano ayaa dimuqraadiyadda waxaa kaloo ah in wax la yiraahdo aqlabiyad lagu kala baxo dimuqraadiyad waxaa la yiraahdaa waxay bulshada jeceshahay oo lagu dhaqmo dimuqraadiyad waxaa magaca maalintii ugu horreeyay uu soo yeeray waddanka waxaan maqlay in hungary inay hadiyin Greega waa luuqad oo Greega aan jeclahay ayay ka timid marka walaal for example waxaad arkaysaa qolada Catholic-ka iyo Protestant-ka waxaad arkaysaa niman la leeyahay waa sheeqin oo haddana guurku waa ka xaraan la leeyahay oo kala arkaysaa in dadkii masiixiyiinta ay guursan jireen markaad aragto haweeney masiixiyada markaad aragto sida qoftan islaamiga ay xijaabanta oo dhaqankoodu waa u jeedaa inay ay yihiin marka ana waxaan qabaa dimuqraadiyadda waa waxa aniga iyo adiga aan ku heshiino ama mujtamac uu ku heshiiyo oo la hirgeliyo marka haddii ay hadda iyaga ay sharci cusub ay samaystaan annaga kulli waxaan balyeynayna weliba waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado in wiilasha guurka ugu fududaado in dadka ay nasteexa helaan oo ay qarashir isku guursan karaan
marka haddii ay hadda iyaga ay sharci cusub ay samaystaan annaga kulli waxaan balyeynayna weliba waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado in wiilasha guurka ugu fududaado in dadka ay nasteexa helaan oo ay qarashir isku guursan karaan. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. sidee ilbaxnimo ku tahay in raggu isguursadaan? sideese dhaqankaasi uga fududaaday guurka xalaasha ah ee uu allaah u jideeyey ragga iyo dumarka? wax lala yaabo ayuu noqday hadalka xildhibaan daahir. caqliga qofka muslimka ah kama dhaadhici karo in raggu isguursadaan sida qoomkii la halaagay ee Luud. sidaa darteed ayaan daahir weydiinay sida ay ku suurageli karto in laba rag ah ay isguursadaan, isagoona ku jawaabay waxaa jira siminaaro la siiyo dadka noocaas ah ka hor inta aanay isguursan. dadka markay israbaan waxaa loo furaa tababar koorsaa la siiyaa, waqtigaa la siiya oo waxaa la yidhaha trainingaa la siiyaa si dabeecadda qofka isku cusubtii loola qabsado oo sidii laba qofoo isku cusub dabeecaddooda sidii uusa qaban lahayd ayaa la baraa. sida haweenka naagaha guursana lesbiana la yidhaahdaa ilbaxnimadiyaasiyaad. maalin kadib markii baarlamaanka Uganda ansixiyeen in raggu isguursan karaan dumarkana isu dhixi karaan ayaa waxaa soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo soo dhaweynaya arrintaasi. xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa ka mid noqday xildhibaanada soo dhaweeyey tallaabada ay baarlamaanka Uganda ku ansixiyeen in raggoodu isguursan karaan, isagoona sharaxaad dheeri ah ka bixiyey dhaqannada noocaas ah oo uu ku soo arkay waddanka Ingiriiska oo uu ku noolaa muddo ka badan 20 sannadood. daahir ayaa dhaqankaasi foolxumada badan ku tilmaamay ilbaxnimo hor leh oo ragga u fududeynaysa inay isguursadaan dumarkana sidoo kale.